hadal hayay oo ku saabsan qoondada dadka Soomaalida Itoobiya ay ka helayaan shidaalka laga helay deegaankooda. Abiy Ahmed oo dad badan kula hadlayay gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka ayaa ka jawaabay su'aal la xiriirday qoondada ay Soomaalidu ku yeelanayso shidaalka laga helay deegaankooda. Abiy Ahmed waxa uu ku jawaabay walaalaheena deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaanu sheegay in ka badan 5 goobood ayaa Itoobiya shidaal laga helay. Arinta meesha taagan ma aha inaanu ku faano annagu shidaal ayaanu helay ee muhiimadu waxa weeyaan sidee khayraadkaasi meel la isugu geyn lahaa isla markaasina looga faa'iideysan lahaa. sababtoo ah 1000 sano ee la soo dhaafay iyo 60kii sano ee ugu dambeysay shidaalkan la baadhayay lama ogeyn inuu yahay biyo ama ciid. hadda markaaynu ogaanay in wixii halkaasi ku jiray uu shidaal yahay haddii aynu nidhaahno dhulkayaga ayaa laga helay iyo waxyaabo noocaasi ah natiijada ka dhalan karta waa inaynu islayno oo kaliya xataa wax faa'iido ah lagama yaabo inaynu ka helo haddii aynu isku khilaafno. Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in khayraadka dhulka Itoobiya uu yahay mid dadka oo dhan ay leeyihiin waxana uu sheegay in qoondada ay yeelan karaan dadka Soomaalida ee degan wadankaasi ee ku nool meelaha shidaalka laga helay. waxa uu yiri hase yeeshee iyaga oo aan deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaliya loo eegayn khayraad kasta oo dabiici ah oo laga helo deegaan kasta 5% ilaa 10% waxa lagu horumarinayaa deegaanka khayraadka laga helay. arintaasina waa mid caado u ah oo ay ku dhaqmaan wadamo badan oo ka tirsan qaaradda Afrika. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa mar hore oo uu ka hadlay qoondada uu deegaanku ku leeyahay shidaalka waxa uu yiri waxa jira sharci federaalka u yaala oo dhigaya in haddii shidaal la soo saaro ama xitaa khayraad kale deegaanku uu leeyahay